Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhowaada imtixaanaheennii inoo socday ee ciwaankiisu ahaa Top 5 ama shanta wanaagsan. Halkudhigiisuna ahaa xasuusuhu waxay mudan yihiin ixtiraam. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa hal hees, laba dhigane iyo laba gabay oo kooban. Heesta ayaynu ugu horreysiin doonaa. Heesta waxaa la yidhahdaa Dahabo. Waxay soo baxday 2025. Waxay leedahay wanaaggiyo dadnimadiyo dulqaadka iyo samirkan kugu doortay qaaliye maxaad ii dayacaysaa. Durdurkii Fardowsiyo waxaa tahay daweeye naftan kugu dulmeertaa arxan bay dalbanaysaa. Suugaan duxloo wacan deelqaafna aan wadan ka guddoon dubaaqiyo afkan adiga kuu dihan ee gacalo kuu diran. Ma dumaalo naagaha ninkay nolol ku dayrshaan oo dabuubtii qamaan iyo waa hadal da'weyne araggaaga dahabooy waan ku diirsadaayo indhaha ku doonee. Suugaan duxloo wacan deelqaafna aan wadan ka guddoon dubaaqiyo afkan adiga kuu dihan ee gacalo kuu diran. Heestaas intaas ku dhantahay. Waxaa ku xiga dhiganaha lagu magacaabo Riyo iyo Runi Kalroon oo soo baxay 2025. Wuxuu yidhi kolka la seexdo ee arligu jawaaqla noqdo waayeelku qufaca joojiyo ee indhaha isgeliyo dhallaankuna oohinta ku daalo ee hooyadii gosha ka galo iskana gataati dhaco dhallinyaraduna mowlada ku caajisaan ee intay dabka geliyaan loodaan saacadduna u tallowdo kowda habeennimo. Waxaan bilaabaa inaan iska caabiyo badweynta fikirka ee kolkolka qaar inay liqdo ku dhowaata. Anigoo isku dayaya inaan halista iska badbaadiyo hurdadiina goobaya ayaa Rabbi ii hiiliya oo baalasha indhaha isgeliya. Ha yeeshee markaana ma nasto oo waxaan tagaa duni kale oo loo yaqaan Riyo. Waa adduun gaara, farxad, cabsi, walwal, layaab iyo dareenno kale oo badan ayay gadaan ganacsatada halkaa ugu tagaa. Dalabkaagana kuma siinayaan ee kolba waxay kuu gartaan ayay kuu miisayaan. Kolka aan soo kacana falcelinta aan sameeyo waxay ku xidhan tahay wixii la i tusay. Marka waxay qanciya aan arko waxaan soo xasuustaa meelisyo ku jiray maase uu tiriyey Warsame oo ahaa sida loo riyoon karo haddii loo rumayn karo cidba may rafaadeen. Jeerka muuqaal cabsi leh manaam aan ku arkana intaan boodo ayaan ku dhawaaqaa meelisyo ka mid ah heestaydii Riyo. Riyadii xalayay ha rumoobin Rabbigii i tusow ha i riiqin Raxmaankii i khalqow kuu rukuucay. Kolkaasaan 2 ragcadood oo sunnah tukadaa anigoo Alle ku mahadinaya inuusan run ka dhigin oo ay riyo ku ekayd. Waa qormo kooban oo aan ku tusaaleynayay sida aadanuhu u raaxo jecel yahay rafaadkana u neceb yahay. Xaqiiqaduse waxay tahay wax aan dhib loo marin lama helo. Wax kastoo loo halgaamaana way ka dhadhan wacan yihiin wixii fudayd aad ku heshay. Dhiganaha ku xiga waxaa la yidhahdaa Fanka iyo Suugaanta 2026. Fanka iyo suugaantu waa dabiib si daacad ah igu adeega. Fanka iyo suugaantu waa saaxiib igu heliya xilliyada adag ee duruufuhu ila soo gudboonaadaan. Waa bare nolosha ila halgama talooyin kala duwan oo wanaagsanna i siiya. Waa rafiiq ila saaxiibay aniga oo yar ilaa iyo maantana garabkayga jooga. Inta aan noolaan doonana agteeda ka muuqan doona. Fanka iyo suugaantu waa madadaaliyahayga, waa difaacahayga, waa daweeyaha ruuxdayda hoose. Waa ka i dareensiiya inaan ahay qof jira. Adduunka dadka uu doono iyo dalka uu doono ha ku abtirsaday ee waa isha farxaddaydu ka soo burqato. Dadka ku doodaya inuu uga xun yahay waa kuwa uu garaadkoodu gaaban yahay ama magan u ah aragtiyo cid kale. Wadaad gaajooday ayaa aragtidayda maalin waayey meel uu bariiska kala soo baxo. Kadibna dadkii uu ahaa caqliga ayuu ka dhaadhiciyey in fanku fusuq yahay. Kadibna ardaydii jaamacadda qaabka dan ka soo aflixday waxa ay ku figaaseen adduunka iyaguna waxay sii faafiyeen aragtida macnaha daran. Balse yaa weeye cidda ay sida ay doonaan ka yeeli karaan ee sida xoolaha marba dhinac u daweeyaan, sida dugaagana marba dhinac u didinayaan, sida daadkana marba dhan u dilaaminayaan. Jawaabta oo kooban waa kii u nuglaada sunta warmaha ay siitaan afka ku leeyihiin. Waa kii nacnacdooda duuduub ku liqa ee aan maanka la kaashan miisaanna saarin waxa ay sheegayaan. Cod wanaagsan, erayo dhadhan wacan, laxan dareenka la falgelaya, kaban xididada dhiigga sii raacaya oo wadnaha si toos ah dhawaaqiisu gaadhayo.
Jilliin qurux badan iyo bandhig intaa lagu kaabay, waa maxay eedda ay leeyihiin? Adigu isweydii oo isu jawaab. Waxa aad u malaysana naftaada ku hoggaami. Laakiin aniga iyo cid kale toonna xaq uma lihid in aad waxa la hor istaagto. Okay. Intaaynu kaga nimaadno dhiganaha, waxaan ku xijinayaa gabay kooban oo lagu magacaabo Filsan 2025 iyo 2026 meelahaas ayuu ahaa. Wuxuu yidhi ma filayo inaad tahay doctor fiican oo wacan. Haddii aad fogaan layd mar uun waan farxi lahaa. Fahankiyo jacaylka iyo khalqiga farafareeyaane. Fallaagiya waxaa jira namiim fidiya daacuune. Feedhaha waxaa igaga yaal fayraskoodii. Adiga u fududayso u fasaxay inay i feedhaane. Furuq bay i badeen oo mudday fiixi igu tiille. Intaan fooq ka soo dhacay. Intaan buuro fananayay. Intaan fid dhaqaaqeen haddana furo socon waayay. Inta fadad biyaysanin dharkii qooyay faraqayga. Intay fiini igu yeedhay. Een fiirin kari waayay. Fajac iyo intii aan ku jiray lama filaan meedhan. Hadna foox ayaa kuu shidnaa. Waadna fiicnaydee. Fuud iyo waxaad jaqaysay malab, caano iyo faare. Filsanay sidaydii warmuhan kuguma fognayne. Maxaan been ku fali aan hadhow laga filayn oofin. Okay, kagu dambeeya waa gabay kooban oo isaguna la yiraahdo dhool, isaguna 2025 ilaa 2026 meelahaas ahaa. Wuxuu yidhi weligaaba ii soo dhawow, dhabarna ii muuji. Dhoolahana ii soo caddee ina soo dhaasho. Dharka kiisa ugu bilicsan iyo dhoolay soo qaado. Boqorkii iyo dhaclihii oo u olol sida hashii dheeman. Weligaaba dhawq iyo odhaah dhiiran igu soo gan. Weligaaba dheerow macaan igu dheho qayli. Weligaaba soo dheelmo oo dhayna ii soo dhul. Weligaaba hoo ii dhadhami dheefta igu daali. Weligaaba dhaayaha ilmo iyo dhibic ka soo tuuji. Weligaaba dhawqiyo codkana suuro ugu dhaash. Weligaaba sida dhiiqo geli socodka dheeldheeli. Weligaaba sidaa tahay dhurwaa fiidka soo dheelmo. Dharaartiyo aroortiina imo dhidarka qaabkiisa. Weligaaba i dhagayso oo dhuux odhaahdayda. Weligaaba ii dhaaro oo dhaymo iga raadi. Weligaaba soo dhiib hadyado iyo dhambaal gaara. Walle ruuxii aad dhaawacday dhimirka beelsiisay. Wadnahaad dhufaantay iyo qalbigaad dhabacda leefsiisay. Dhiiggaad qubtay iyo laftiyo dhuuxii aad saydhay. Hiskii aad dhishayee bogta iyo nabar ku sii dhaaftay. Kuma soo dhowaado mar kale dhaayo kama qaadid. Maanta intaas ayaynu ku dhantahay. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.